رئيس الوزراء عصب dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa bilaabay la kulanka safiirada beesha caalamka u jooga Soomaaliya iyagoo ka wada hadlaya taageerada Soomaaliya iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka u dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo beesha caalamka. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa maanta la kulmay safiirka UK u qaabilsan arrimaha Soomaaliya David Conka iyadoo safiirku uu soo dhaweeyay magacaabista Mr. Khayre. Safiirka dalka Ingiriiska ayaa sheegay in dalkoodu ay si dhow ula shaqeyn doonaan Ra'iisul Wasaare cusub iyo xukuumadda uu soo dhisi doono. Ambassador David ayaa sheegay in UK ay ugu deeqday Soomaaliya lacag gaadhaysa 100 milyan oo gini oo gargaar cusub ah si wax looga qabto abaaraha iyo xaaladda 600,000 oo caruur ah oo ay wajahday xaalad nafaqo darro. Sidoo kale safiirka UK ayaa uga warbixiyay Ra'iisul Wasaare cusub qabanqaabada shir heer sare ah oo ay martigelinayso dawladda Ingiriiska kaasoo dhawaan ka dhici doona magaalada London. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb gali doona dawlado badan iyadoo laga hadli doono arrimahan amniga, dhaqaalaha, abaaraha iyo dib u dhiska dawladda Soomaaliya. Waxaana la filayaa in Soomaaliya loogu deeqo dhaqaale. Ugu dambeyn Ra'iisul Wasaare cusub ee dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo taageerada ay dalka Ingiriisku had iyo jeer la garab taagan tahay Soomaaliya waxaanu ka mahad celiyay booqashada iyo isbarashada safiirka cusub ee UK u qaabilsan Soomaaliya.